xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay guddoonka u gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay khiyaano qaran isla markaana ku xadgudbay dastuurka qaranka. xildhibaanada waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si aan waafaqsanayn dastuurka qodobka 36 uu dowladda Itoobiya uu ugu dhiibay Cabdikariim Qalbi Dhagax taas oo xadgudub ku ah dastuurka Soomaaliya. xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu heshiisyo iyo is-afgarad qarsoodi ah la galay dawlado shisheeye oo sheegay in ay la seexdeen Soomaaliya heshiisyo lagu wareejinayo dekedaha Soomaaliya sidoo kale lagu mideynayo wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. xildhibaanada ayaa qodobo kale ee madaxweynaha ku eedeeyeen waxa kamid ahaa inuu faragelin ku sameeyay arrimaha gaarka u ah maamul goboleedyada sida doorashooyinka, deganaanshaha amni iyo siyaasadeed isagoo ciidamo u diray si loo afduubo doorashada Koonfur Galbeed. gudoomiyaha baarlamaanka ayaa mooshin ka gudoomay xildhibaanada. xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa wali si rasmi ah ugu hadlin mooshinka madaxweynaha laga gudbiyay. waa Guleed Garaad, Afrindod Media.